xildhibaanada horta waxaan ka codsanayaa markii koowaad dalkii dibadaba xildhibaan kasto kamid ah golaha shacabka asigoo fiyow asigoo fasax shaqo ku maqnayn asigoo maartay shaqo fasax caafimaad ku maqnayn oo iskaga maqnaado arintaas in laga waantago oo la yimaado baarlamaanka la soo xaadiro saacadii lagu talagalay la soo xaadiro qofkan shaqada rabin oo maartay magac uu ka rabo waa qaldan yahay xildhibaanada qofkii dhab ku noqoto khiyaar uu leeyahay waa iskaga tagi karaa laakiin ma aha in shaqadii lagu ciyaaro xildhibaanada walaalaha shaqadooda oryaamisa ma aha waan arintaas waa lagu badatay dulqaad badan lagu soo jiray maalin shaqo dadkan lama tiigsanin sidaas daraadeed maanta waxaan rabaa fariintii ugu dambeysay inaan farno oo aan waajibaadkeena aan isu sheegno aan isxilqaano qof kastana sharci u hoggaansamo guddi waxaan leenahay nidaamkeena ilaalinayo oo guddi la yiraahdo guddiga xeer hoosaadkii anshax la yiraahdo ayaa jira nidaamka inuu ilaaliyo baarlamaanku doortay oo nooga magacaaban guddigaas oo guddoomiyaha ku yahay xildhibaan Abdisamed waxaan ka codsanayaa kalfadhiga intuu socday dadka maartay iska maqan oo imaanaynin ama magaalada ha joogeen ama fasaalaha dibadaha iskaga maqnaadeen fasaalahaan ku maqan shaqo ku maqneen oo iska maqan liiskoodan ka rabnaa qof kasto asiga oo jooga imaan waayeen waxa heer hoosaadkeena qabo yaan ku amal fari doonaa haddii aan leeyahay qof kuma dulminayno waxaan rabnaa in sababta loo sameeyay maxay tahay heer hoosaadka loo ansixiyay in shaqadeena gudana loo ansixiyay walaalayaal waxaan idin leeyahay 21 hindi sharciyad haday noo yaalaan toddobaadkii dhan waad ogtihiin 3 maalmood shaqada aadin qabanaa 3 maalmood ti guddiid iyo arrimo gaar ayaan ku mashquulnaa haddii 3 maalmood ayadoo la joogo shaqadii la diido shalayna waad ogtihiin xildhibaan markii la noqonayo sidii loo jecelaa qofka xildhibaanada waayay wuxuu ismoodahay in maanta dhibaato ku dhacday kii xildhibaano helayna inuu guuleystay oo guusha ugu dambeeyay gaariga loo haystay wixii aad ogtihiin farxad aan ku farxanay markii lana doortay marka wixii loo doortay haddaan gudun wayna maxaan noqonaynaa ummadii Soomaaliyeed soo doortay Soomaaliland qiyaamina marka walaalayaal sidaa daraadeed waxaan rabaa qof lagu xumaynayo shakhsi gaar ah loolama jeedo xildhibaanada waxaan ka codsanaynaa oo ugu celinaynaa inay shaqadooda gutaan oo imaadaan waajibaadkii loo doortay gutaan oo imaadaan anagu markaas had qofkii diido in shaqo waajibaadkiis guto asigoo xanuunsanayn asigoo fasax ku maqnayn iska maqnaado waxaan ku qasabnahay heer hoosaadka inaan hoggaansan ku qasbanahay sidaa daraadeed gudoomiyaha golaha guddiga heer hoosaadka iyo macal guddigiis waxaan ka rabnaa liisiska inaad noo soo diyaarisaan si aan walaalahan u xisaabtano oo qaladaadka ku jiro marka maadaama shirki kooram laam u furmi waayay xildhibaanada sharafta leh waa mahadsantihiin intii soo haadartay waa fasaxantihiin fadhigiis waxaan rabnaa xildhibaan dalkii dibad jooga oo bilaash ku maqan oo fasax la maqan inuu soo haadaro inta isku tirkoobi doona liisna waa la yeerin doona haddii aan